marka walaalayaal waa inaan dariiqada mashaayikda laga been sheegin. qofka markuu ahlu dariiqa yahay waa in suluugiisa iyo axwaashiisa lagu hanuuni karo. wejigiisa markii la fiiriyo dad badan waa inay ku hanuuni karaan. taqwada ka muuqata, khushuuca ka muuqda, siduu maaragtay qoyskiisa u xanaaneynayo, siduu qoyskiisa ilaahay ugu xiraayo, siduu asagu habeenkii u soo kacayo. ya waa arkiisa Sheikh bin Idris maanta taariikhda waxaan ku soo qaadanay 2 ragco kaliya quraanka ku dhamay jiray. walaalayaal suluugaas mana la keenaya anaga maanta. marka arrimaha noocaas walaalayaal waa inaan iska saxno. marka sidaa leeyahay aniga ujeedadaydu waxay tahay al-ghira ala tariiqa. waa qiira aan u qabo dariiqada in la toosiyo. waa kan nixid aan ka naxsanahay kana xanuunsanayo dariiqada tashwiiha lagu samaynayo ama qaabkeeda la xumaynayo qofkana uu leeyahay anigu ahlu dariiqan. waxaa dhici karta dadka acdaada markaas oo cadowga dariiqada ku ah markay dhaqanka qofkan arkaan inay yidhahan war dariiqada la sheegayo majaadkan iyo sigaarkan in la cadcadamiya qofkana uu yidhaha baabkayga ha gelin miya warna iga taga waxaana dariiqo maahane waa inkhilaac oo diinta si toosa qofku maaragta dhaqankeeda uu uga baxee inuu yidhaha dhici karta qofku. marka waxaa iman karta dariiqadii in loo arko waxyaalo lagu majaajilaysto lagu qaraab doonto oo diintaba aan shuqul ku lahayn inay noqoto dadka cadowga ay arrinkaa u fahmaan. marka qofka akhlaaqda xun ee haddana dariiqaan ahay dhahaya hal la ogaado ninkaas waa nin cadow ku ah dariiqada. waa beentii dariiqaan ahay marka uu leeyahay. war wax la sheegi karo mara walaalayaal ma aha sida yacni dariiqadii maanta loo cambaareeyey oo loo ceedeeyey oo loo yasay oo lagu cayaarahay. dadka noocaas oo kale ah oo akhlaaqda xun waa dad acdaa lidariiqa dariiqada cadow ku ah waana been afka ay ka sheeganayaan walaalayaal. ilahi wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna ma laa tafcaluun kabura maqtan cinda allah an taquluu ma laa tafcaluun. yani waxaad ninku aadnaan samayneyn maxaad uleedihiin waxaad ninku aadnaan samayneyn maxaad uleedihiin buu leeyahay alla subxaanahu watacaala. wax la yaab leh. marka sidaas awgeed ayaa waxaan qaadi xasan caakish uu yidhi وما طريقته إلا الكتاب ولا يمشي على نوره إلا ببرهان. طريقة سيد حمد ما هي نور إلا كتاب إلهي معنا. والكتاب كإلهي أي ميزان نوع ولا ليه. أنا وهذا النهاية تصوفك يعني اسم الشيغناي طريقة اسم الشيغناي. كتاب كإلهي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي أنا ميزان نوع. قفت هل هو ميزانه كرامك استوقفك الشيكته. هي بيها هدو كل نحسه هذا. iyo hadduu hawada ku dowlo hadduusan kitaabkaas iyo sunnahaas wax khilaafsan uu samaynayo annaga dariyu nagaya dariiqo kasta ha sheegto dadka ظاهر الشريعة walaalayaal ilaalinteeda ayaa ballan noo ah. aawi sayid الصوفية علما وعملا جنيد البغدادي مهولها walaalayaal عملنا هذا مشيد بالكتاب والسنة. annaga camalkeenan tasawufka ah waxa uu ku xiran yahay kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam. إلا قفك دوسه دون اتكسم إلى بابك يمجري كتير لحا إيمانايا إن قف دينكو عمل فشابه يسجرن أو قف الباصرات إن توكسوا إلى بابك يمجري كتير لحمرك الباب الوفرة منكر كله بطف إن دينة الإسلام كوضن لإيهانيسته الباب الوفرين شو ماركتي يعني ضد الروحان أديكتنايا أما جين أديكتنايا أيا مركي أركان إدعان يعني ودن فوق الله إيقصوا هذا لي أما حكت هذا هيا الله ولي إلهي وإليه لما أقرأ intaadan weli ilaahay aadan oranin oodan la soo boodin qofkan waxaa dhici karta inuu ruuxaan adeegsaday ama jin inuu adeegsaday. horta bal eeg qofkan siduu shareecada ugu dhaqmaayo markaad ogaato miisaanka shareecada inuu ku dhaqmaayo markaa dheh waa weli ilaahay ama waa saalix dheh. laakiin adigoon ogaanin sida shareecada uu ku yahay aan la soo boodin weli ilaahay. khawaariq caadaadka waxaa kamid a nooc sixirkaa kamid a nooc istidraajaa kamid a qofka lagu dulaynayo nooc waxaa kamid a jinka la adeegsado. waxaa dhici karta qofka hadduu jin adeegsanayo maraykan khabarka ka dhacaya inuu jinkaas u keeno adiguna istiraaway weli ilaahay markaas. marka walaalayaal waxaa anaga miisaan noo ah sida Abu Yazid al-Bistami uu leeyahay in qofka aanan oranin waxa ka soo filayo waa karaamo ilaa aan ka ogaano shareecada sida uu tadbiiqinayo. laakiin haddii salaadii subaxa uu ka hurdaayo haddana uu ku leeyahay sheekhaan ahay allo karaamaan ahay dantaa weede waa nin qaraab doona sheekhaagana u socda. marka waa in walaalayaal aad looga taxadaro dadka tasawufka u nisbe sheeganaya dadka dhahaya anagu awliye ilaahay ayaanu nahay waa in miisaanka qofka uu aad ugu saaro inuu kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku dhaqmaayo. imaamu dahabi ayaa ku yiri kitaabkiisa la yidhaha sir aclaam nubala juska 13 lambarka 88
أبو يزيد البسطامي أيا وحو يري إلهي وحو أبو ريبت فربضا بيها كدي سعانا أو وحكي ما إلهي أسكيسان كل هاي فالهذا الكائن ولا ليه إلهي وحو أبو ريبت فربضا بيها كدي سعانا إلهي أسكيسان وحي ميزان يتيمان كلا هاي وحو يري أبو يزيد البسطامي هدي أسفيرسان قد كرامات فربضا لسيي إلهي وحولا كدورها أيو حكوكة سوميننا إلهي أتكاركتان sidee shareecada ugu camal falaa sidee awaamirta ilaahay u fuliyaa sidee waxa ilaahay ka reebay uu uga haraa sidee xuduudda sharciga u ilaaliyaa ilaa sidaas aad uga imtixaantaan heed ka rumaynina waa weli ilaahay hadhiinina tasawufka walaalayaal waa sidaas xaqiiqadiisu suufinimada xaqiiqadiisu sidaas ayuu ka amri dada maanta soomaalida in badan waxaa jirtaa iska dagan ama iska ajaran oo la iska khayaani karo oo haddii la yidhaaho walaalka oo gaalkacyo oo kale ku xanuunsanayo ayaa khabarkiisa la ii keenay xalay oo khabarkiisa aan ogaado halkaasuu gurigiisa ku yaala gurigiisa bariyu usii jeedaa saas weeye haddii looga sheekeeyo iska rumaynayo weli ilaahay iska dhahayo war maxaad ka ogtahay inuu sixir waxaan ku gaaray war maxaad ka ogtahay inuu waxaan jinni ninkan adeegsaday maxaad ka ogtahay waa inaad marka fiiriso qofkan shareecada markuu ku toosan yahay oo karaamada aad ku aragto waa weli ilaahay markaa kabacdi وظاهر الشريعة وكو عمل فلها كتابة الفتاوى الحديثية ابن حجر الهيثمي إليه هاي لمرك الله وضغ السجاشن يكو أي جنيد البغدادي وحكيري وحكسوا النقلي ابن حجر وكسوا بوري جنيد البغدادي إنه يري جنيد البغدادي بدأ أي واحد كسوا علان بيها البشورة بدأ يجا كفض البضانة هون أي ودن تنبوير بيها البشورة كسوا عنها بدأ يجا كفي عنه أوري ودن تنبوير ولا فيرسو جنيد البغدادي وحو يري هل دورعسو وحلاك oo shareecada aad ku toosnaataa ayaa kaaga khayr badan kun karaama in lagu siiyo wala fiirso kitaabka la yiraahdo Ibris lambarka 27 waxa ku sugnaa xaafid ibn Hajar wuxuu yiri oo ka soo guriyay Nasiruddin ibn al-Munayyir toosnaashada shareecada lagu toosnaado waxa mustaxiil ah inaysan karaama noqon oo istiqaamada shareecada lagu toosnaado nafteeda ayaaba karaama rasmi ah uu yiri laakiin waxyaalaha kale khawaarul caadaadka inay naxariis noqotana way dhici kartaa fidna inay noqotana way dhici kartaa